boqol iyo lix arday oo isugu jira hable iyo wiilal oo ka mid ah da'yarta maxadka ibnu kasiir ee magaalada ceelikaabo ee barashada culuumta sharciga iyo maanta xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay loogu qabtay howlka maxadka ibnu kasiir ee magaalada ceelikaabo ugu horreynba waxaa halkaasi kasoo qayb galay maayir ku-xigeenka magaalada ceelikaabo ismaaciil xaaji cabaasi maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay maamulka dugsiga ibnu kasiir magaalada ceelikaabo sheekh cabdirashiid maxamed warsame ibnu kasiir waxaynu aasaasnay 2009 sidii marar badan halkaaynu ka sheegnay dufcaddan hadda soo baxday waa tii shanaad dufcaddii u horreysay waxay ahayd ardadii maalinta dawladda xafladda aynu halkan ugu qabanay ee jaamacadda bariga africa ka qalin jebisay ilaahay subxaana wa tacaala baa ku mahadsan oo 65 arday meelaha ku dhawaa inamiya hablo isugu jiray maantana ah jaamiciyiin shahaadada heerka koowaad ka qaatay jaamacadda bariga africa faracda argaabo dufcaddii u horreysay macadku soo saaray taasay ahayd dufcaddii ku xigtay 25 arday bay ahayd dufcaddii ku xigtay 51 arday bay ahayd dufcaddii ku xigtay 103 arday bay ahayd waad dareemaysaa inay soo siyaadayay tirada ardaydu mar walba dufcadda maanta baxaysaana waa 106 arday weeyaan waxaa la odhan karaa waa dufcaddii ugu badnayd ee macadka intii laga qalin jabinayey baxday weeye inamiya hablaba 46 arday miyaa la odhan karaa inan miyaa la odhan karaa mise 45 arday inan iyo dhowr iyo 60 hablood bay noqonayaan tiro ilaa 350 arday baa ilaa hadda macadka ka baxday qaarkood jaamacadda kasoo qalin jabeen intoodii badnayd qaarkood macallimiin wax ku oola ka yihiin macadka inamo iyo hablaba bacdallaahi rukumada iyo tiirarka uu ku tirsan yahay macadka waxaa la odhan karaa hadda waaba kusii yaraanaynaa qoladeedii hore ardaydii macadka ka soo baxday kuwoodii hore ayaa iminka macallimiinta ugu badan ee macadka ka dhigta oo weliba la odhan karo waa tiirarka uu ku tirsan yahay bacdallaahi raggaa weeyaan iyo hablahaaba macadka ayaa asaaskiisa sababtii aanu aasaasnay marar badan baynu ka sheegnay malaa 5tii dufcadood warkaa waa ku celinay waxay ahayd waxaa runtii noo muuqanaysay mar walba in ay jirto baahi diineed oo ay mutawafir tahay cilmiga maadiga iyo socodsiintiisa dadkuna isagaba heelan yahay malaa haddana iska noqdayba wax la iskaga xisaabtamo qultul daruuriga reerka in ilmaha iskuulka loo diro oo la yidhaahdo soo iskuulka tag qultul daruuriga reerka ka mid tahay iyada lama dhafo laakiin xagga diinta looma dadaal badda marka xaqiiqo loo hadlo sidaa daraaddeed waxay noqotay inay lagama maarmaan tahay badadka in loo helo meel shareecadii lagu nooleeyay luqadda carabiga oo asaaskii diinteena kale ardayda halkaasi kasoo jeediyeen waxyaabihii ay ka bateen maxadka ibnu kasiir ee magaalada ceelikaabo ardaydaasi الحمد لله ما غرد بلبل وصدح وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر وما ارتفع نور الحق وظهر وما تراجع الباطل وتقهقر وما سال نبع ماء وتفجر وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر ما علا نجم في السماء وأبهر وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر نبدأ حفلنا بسم الله منزل الكتاب ومرسل محمد خير الأنام بسم الله خالق السماء بسم الله مدح الأرض ومخرج مائها ومرسل الجبال بسم الله هادي الناس ومنذرهم ليوم الحساب أما بعد سلام الله يثري ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين وما جادت بماء المزن سحب سقى الأشجار والزرع الدفينا سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبط ياسمينا سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا فالسلام هذا الله دعية دردارة نسوكتي دا كسو تشيدية واردين تاطي داسي مدد بان ورد لها أردينا مد وحويان haddaad bilowdeen waxbarashadii oo maraaxil badan baa idiin hadhay tii jaamacadda oo barigii dhawata wiilgii dhawata aan daawanayna xafladeeda ta masterka ta dictooraha cilmigu waa iskaba socdaa marka bilow baad maraysaan hadda ilaahayna ha idiin sahlo dadaalana
waxaa jirta hadda marka la akhriyo kutubta axaadiista ah kitaab la yidhaahdo nusb raaya ayaa ninka qoray waxa uu ku abtirsaday asaylac magaciisa fulaan fulaan asaylaci baa la yidhahdaa marka insha allah waxaan rajaynayaa inuu noqon doonto dhallinyaradiinani mid ku abtirsada ceergaab intuu kutub qoro intii halkaasi la isku guddoonsiiyey shahaado sharafyo ay ka mid ahaayeen jaa-isooyin ay bixinayeen macallimiinta dugsigaasi oo ay siinayeen 6dii arday ee ugu sarreysay halkaas ay ardayduna ku guddoonsiiyeen macallimiintooda shahaadooyin iyo alaab ay ugu talagaleen cabdifataax maxamed yuusuf dabablehe wordpress.com magaalada ceerigaabo aan youtube-ka ku leenahay ee ficil channel magaalada ceerigaabo مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى